waan fariistay waxaan isweydiiyey haddaan idin hor imaado waa maxay waxyaabahan aan idin sheegi karo waa maxay maxaan idin dhihi karaa markaan aad u fakeray waxaa igu horeeya aan rabo inaan idin iraahdo oon idin mariyo dhalinyarada Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya dhammaan dadka Soomaaliyeed muwaadiniinta Soomaaliyeed oo konton jir iyo wixii ka weyn ah magacooda aan ku hadlayo inaan idin iraahdo dhalinyarada Soomaaliyeed naga raalli ahaada naga raalli ahaada waayo wixii annaka jiilkii annaka naga horeeyay facin naga horeeyay waxa ay noo dhiibeen aan ku soo barbaarnay idin ma hayno maanta idin ma dhiibi karno naga raalli ahaada haddaan idin dhaxal siinay dal oo weli ishaystay isdilaya ama aan weli nabadii iyo amnigii weli ka jirin dhexdiisii haddii ay jiraan naga raalli ahaada haddii wixii aad tiranayseen ama noloshii wanaagsaneed aad rabteen inaad dhisataan hadday idinka carqaladaysan tahay oo taa idinkaga tegayo naga raalli ahaada waayo waxaan rabaa in yar wax hadda cusub idinma sheegayo maanta oo dhan saa u doodayseen iyo warbixinada aan dhegaysanayay waxay aad u tilmaamaysaa in basay dhalinyaro uu soo ifbaxayo oo aad noo dhiirigelinayso hase yeeshee waxaa la yidhaahdaa qofka meeshii uu ka yimid aan garanaynin meel uu socdana ma yaqaan in yar aan idinkaga hadlo 3 qaybood oo noloshayda ka mid ah si ay daaqad idinku furanto meesha aad u socotaan ay u caddaato anigu waxaan dhashay 5 sano ka bacdi markii dagaalkii labaad uu dhamaaday waxaan soo baxan ku soo barbaaray Soomaaliya marka aan ku dhashay aan ku soo koray waxay ahayd Soomaaliya oo aan lahayn ururo aan lahayn calanka Soomaaliya buluuga aad arkaysaa markaa ma jirin wali Soomaali oo markaa doonayso gobonnimo inay ka baxdo waxaan dhashay markii aan dhalinyaro ka hadlayno maskaxdeena markiiba waxay aadaa 13 dhalinyaro oo kulmay oo Somali Youth League la baxay Somali Youth Club Somali Youth League la soo baxay ay maskaxdeena aadaa taariikhda waxay ku sameeyeen ilaa maantadan xusid mudan bay ku yaalaan waayo raadadkii ay dhaafeen baan weli ku soconaa yaana soo barbaariyay annaka oo markaa aan dhalinyarada ahayn axzaabtii siyaasiga ahaa iyo dhalinyaradii waxay abuureen oo mar walba iskuulaadka elementary noogu imanay oo nagu wacdinayo caruur yar annagu aabayno oran jireen madaxdii beritaa tihiin waxaa yeela waxaan hayeelin saa yeela waana kicinayeen intaa waxay nagu abuurayeen Soomaalinimo ka soo gudub xorriyadii baan ku qaadanay isla ayagii falsafadii ay nagu abuurayeen iyo wacyigii iyo wacyigelinteena siinayeen ayaan ku soo gaarnay ilaa 69kii يعني marka ururo waa jireen ururo madax banaan ururo dhalinyaro ururo macallimiinta ururo oo shaqaalaha isgaarsiinta ururo caafimaadka ururadaas badan ay jiray oo xukuumadda talaabada ay qaadaysaba annaka digta gareyn jirnay annaka u yeerin jirnay hadday leexatana waan ku kici jirnay taasal ila dimuqraadiyada ururada loo sameeyay looma sameeyay aniga golay kaas noqonay reerkii hiblay ku faa'iideysana waxa loo sameeyay waxa weeyaan difaaca aad difaacayso arrimaha aad aaminsantahay aqliyan ummadaas ay ku hormarayso ayaa loo sameeyaa mooyaan reer hiblow iyo futabicid kale looma sameeyo waxa marka muddo aan ku soo soconay dhalinyaronimadii markii aan ku jirnay kontonaadkii ilaa 60naadkii laga soo gaarayay ma ahayn urur dhalinyaro oo sugaya in mucaawano ay xukuumadda ka helaan ama mucaawano urur oo marata NGO ayaamahan la baxay ay ka sugaan ama United Nations ay ka sugaan ma ahayn waa u baahneen lacag inaan ku wadno afkaarta aan wadano iyo waa xorriyada aan gaarno aan rabnay waxaan xusuustaa maalin ilaa hadda aan xusuustaa waxaan sameyn jirnay si aan fundraising arinta yani lacag inaan urursano oo aan buugaag ugu soo gadno dadka marata wax ugu qorno waxbarashada meelaha aan ku sameynayno lacag la'aan baan ugu dhacday mar waa isu nimid waa fakirnay xageen lacagta ka keenaa yani shilin Soomaali ma hayno maxaan haynaa xageen ka keenaa waxaanu sameynay riwaayadii aan sameynay marka gabdho waa nagu la jireen laakiin habeen waxaan xusuustaa gabadhii nagu la jirtay riwaayadii inay soo baaqatay aniga diraca la geliyay adiga xoogaa dhuudhuubanaya dirac lii garma lahayn markaas ma si habeenkaas u galno markii hore markaan bilaabaynay 3 kun lagu galay
markii dambe la jeclaysa nus shilin baan geynay ilaa bugaagtan basic way la dhahay af ingiriisiga aan dadka ku barin aan ku soo gadno soo ururino walaalayaalow waad samayn kartaan adigoon cidna baryin baad ururkaaga dhisan kartaa siyaasadaada samayn kartaa hore u socon kartaa xukuumadda aad maragtaa xakamayn kartaa baarlamaanka aad keeni kartaa war adaa iskale dalkan waad jiiftaa kac